waayahay waxaan soo taagnay gabagabadii kitaabkii khulaasatu nuurul yaqiin fi siirati sayyid al-mursaliin jiskii labaad baynu soo taagnay gabagabadiisii akhlaaquhu alayhi الصلاة والسلام هذه تاني أخلاقه نبي هبدغن كيسوي عليه الصلاة والسلام كصلي كان وحوها صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ضدك كودا مسترا خلقا حق أبورك وأبورك يسوي حوي أبور ونكسن بوها ما شاء الله وأكملهم كودا وكامل سنبوها خلقا حق الدبيعة ودبيعة سنوع النبي دبيعة ونكسن به إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحاول نيو تلامي حديث البخاري كيمي وحاول ليس صار إن aan dhamaystira akhlaaqda wanaagsan inta ka hadhay markii abuurkiisana mid aad u qurxoon buu ahaa nabi Yuusuf alayhi salaam buu ka sii qurxoonaa waayahay wuxuu nabiga ahaa wasman mid tusaale ah oo sumad ah ayuu ahaa alayhi salaatu wasalaam oo lagu daydo wa aqlan mid wuxuu ahaa aqli badan muhibban mid jecel buu ahaa lil fuqaraa'i kuwaan waxba haysan ay masaakiinta ra'uufan mid u naxariis badan buu ahaa binnaasi dadkan mid u naxariista buu ahaa marka wasfi quraanka lagu tilmaamo way xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufur rahiim suuratu tawbah aayadda numberkeedu waa imisa 127 waaya rahiiman mid naxariista buu ahaa bihim dadka mid u naxariista laa yagdabu maa nucaro jirin ilaa lilaahi alla dartii mooye yacfuu wuu cafin jiray qofka dhib u geysta uu iska cafi jiray wayasfaxu wuu dhaafi jiro laabtu ka sii dayn jiray caman qofkii aadaahu dhiba huwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa kaana rasuulka maanu ahaanin sabaaban mid caaytama muusan ahaanin walaa faxaashan mid hadal foolxuna muusan ahaanin walaa lacaanan mid lacnad badanna muusan ahaanin lacnadiisu ay badan tahay kaana wuxuu ahaa rasuulka sal allahu alay wasalam shadiid alkhawfi cabsidiisa mid ay daran tahay min allaahi alla uu ka baqayo kaana wuxuu ahaa nebigu shujaacan geesi buu ahaa dagaalka marka la joogo isagaa safka hore uu tegi jiray qawiyan mid xoog badan buu ahaa oo sigis baaga aad u xogan buu ahaa biluqat almucaasir waaye oo 40 nin buu nebigu xoogiisa u dhigmay jawaa quraash nin aan la ligdi jirin oo dhulka la dhigi jirin ayuu nebiga 3 jeer ligday isagoo markaa xoolo kula sharatamay xoolihiisa nebigu uu celiyay calayhi salaam kariiman wuxuu nin deeqsiya jawaadan nin deeqsi buu ahaa oo kariiman deeqsiya fasiixan nebigu wuxuu nin aftahana baliiqan xeel dheer يخاطب لهل جري كل قبيلة رير ولبا وعرب كمدي بلسانها بلغتها بكل أهل جري ويحاورها وكل شيء يسنجر بلغتها كان وحوا أصحابه سوحي هايين كان أصحابه صحابي سوحي هايين عليه الصلاة والسلام لا يقفون كوان استاغل له النبي سيدا مدحض أنت الله سمعيه وكله عند حضوره مركو النبي سو حاضر وسو غفريستو اما ويمادو ومي كعجرن maxaa yeelay li'annahum iyagu yaclamuuna waxay ogsoonaayeen minhu min annabiy nabigu waxay ka ogsoonaayeen ka garan jireen ay ku yaqiineen karaahatahu nabiga nicidiisa lidaalika arinka uu nacay aanu jecleen halkaas waxaan kaga baxay nabiga akhlaaqdiisa calayhi salaatu wassalaam kutub dhan baa laga qoray waxa weeyaan ash-shamaa'il la yiraahdo in yaro ka soo qaatay mu'jizaatu waa nabiga mu'jizooyinkii la siiyay calayhi salaatu wassalaam ee ka soo dhaahiray ka soo muuqday minha waxa kamiday inshiqaqul qamari dayaxa oo u dilaacay dayaxa imkasaan inuu eegayno baa laba u kala noqday اقتربت الساعة وانشق القمر حينما قلت طلبت أي كدونتي حجيهان بيقول دونتي من النبي صلى الله عليه وسلم
waxaa ku xujiyey qurayshun quraysh daalika arrinkaa waxay yidhahdaan nebi tahay dayaxaasi laba ka dhig oo dilaaci ilaahay baa u rumeeyey nebiga alla u dilaaciyey wanabculmaay waxaa ka mid mucjizooyinkiisa wanabculmaay wanabaculmaay biyihii oo ka soo burqaday min bayni asaabicihi fariisa dhexdooda cindamaa goortii wadaca uu dhigay yadahu qacantiisii ashariifata ee sharafta ahayd fii inaa'in weel dhexdii oo fii dhexdiisa u ahaaday maaun biyahaasoo qaliilun yar ومنها waxaa ka mid mucjizaadkii nabiga takhiiru الطacaami raashinka badnaantiisii alqaliil yaraa raashinka yaraa ee saxaabadan ku filnaaday ee isagii in dhowr qof loogu talagalay casuumaad oo ka batayba ومنها mucjizaadkii rasuulku waxaa ka mid ahaaday ibraa'u lmardaa dadka xanuunsan oo ilaahay uu ku bogsiiyo وأعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك معجزوين كيس وحا أقوين القرآن كي أقوين ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة الذي قرآن كاسو عجزت أي كإتال دريسي أي أودي كرويسي العرب عربي عن الإتيان ليماشو أي الاتماد بأقصر سورة وقابا ومن مثله قرآن كلام ذا قال الله جل وعلا ألوحي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا marka waxaa tirada nabi maxamed baa la hadlay calayhi salaatu wasalaam qul waxaa tirada nabi maxamedow la in ijtamacat al-insu la wallahi alla baan ku dhaartay in ijtamacad haday kulanto ay isu yimaadaan al-insu insiga bini aadamka iyo wal jinku على أن يأتوا إلى الإمادان بمثل هذا كان وكله كان القرآن كان وكإن الإمادان هذا يسوي مادان وطشي ما يقول بيسوي مادو لا يأتون تذكينا في الصحة حتى يسوي مادان لا يأتون لما إيمان كريان بمثل القرآن كوكله ولو آية الله كريان لما إيمان كران ولو كان هذا بعضهم قاركوت لبعض قارك كله ظهيرا مد حوجيه مد كالمه من اي مساعدا مد عاويه هذا النوضيع من aqoontooda iyo kartidooda iyo aftaanimadooda haba isu keenaan lama iimaan karaan maxaa yeelay cid ka baliiqsan baa hadalkeedii weeyay marka ma gaari karaan halkaas waxa ku dhamaada kitaabkii la oranayay khulaasatu nuurul yaqiin jiskii labaad tamad way dhameystirantay walillaahi alxamdu allah imaad sugnaatay khulaasatu siirati afdalil khalqi makhluuqaadka ka ugu fadli badan siiradiisa siiratu macnaa ficlatun qaabnololeedkiisii kitaabkii khulaasada la oranayay ayuu ku soo gabagaboobay نسأل الله الله وحين ويديسنا أن يوفق إنه وافجي قارئها كتابك آخرنا اللهم اجعلنا منهم إلى العمل إنه كعمل فلسطين ذا سكود أيضا بهدي الرسول رسول كهدي سي الطريق سي إنه راعه وعلى آله الكس الله ونحرسته وصحبه صحابه الله ونحرسته أجمعين دمانتود يعني رسول كأنه وحويان كود أيضا هدي سي وعلى آله الكس إنه كود أيضا أنت مسلمين تنقضي صحابه سي إنه كود أيضا دمانتود ويليها وحان راعي دونا ديسكاني ملخص إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء خلفاء أفرت أبي بكر عمر عثمان علي قابل اللود كودي سوى حويان بلنقات كهراء وشيء سو ودا مستره أيضا كوبان marka kitaabkaas jiskaas halkaas noogu dhamaaday wixii aan ka saxana waa waafajin Allah ka ahaatay Allah inuu waafajiyay ilaa maad iskale wixii aan qaldayna waa fami nafsi wa shaytaan naftayda shaytaan bi ka ahaatay insha Allah saas ku socod doonta jiska saddexaad oo sii gudbi doona إلى إن شاء الله كتب السير ما يقارب إلى رحيق إلى إنك هدو إلى أنت عمري نوسي دا إلى رحيق المختومك وأنا سيود دونا إن شاء الله تعالى الروضة علينا إن شاء الله ونوجرتها فصولك ونوجرها الفصول في سيرة سيد المرسلين صور من حياة الصحابة الشمائل كتب ما إن شاء الله نوجرتها أيضا السيرة أيتها وحمعان أنا مرك آخرنا إذا ما حبيت جيك
jirka ayaa xasir waa macaansadaa wax macaan baad moodaysaa inaan saa u shaqeeyo marka maxaa yeelay waa nolol barakaysan baad waxa weeyaan ayaa lagaaga shakeenayaa oo ciddii waxa weeye dunidan ugu fadli badnayd nolosheeda marka halkaa inuu joogo وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم